السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين كلنتي وعنا وناكسن halkan nagala socotaan waa bartaan YouTube kuleen hay'adda production waana barashada cilmiga computerka iyo sidoo kale xogaha muhiimka ah ee ku saabsan isla cilmiga computerka sida QuickBooks Enterprise Solution, Point of Sale iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriira xisaabaadka ganacsiga noocyada kala duwan. casharkeenan waa casharkii 14aad ee ku saabsan Point of Sale-ka. haddaba casharkeenan 14aad waxaan kaga hadli doonaa sidee macmiil cusub oo markaasi account u sameynayno aan ugu soo dari karnaa Point of Sale-ka version-na waliba version 2019 ama version 19 aanu guda galno. waxaan tagi doonaa ugu horeyn meesha ama menuga ay ku qoran tahay customer list. customer list waxa weeye taxanaha macmiilka magaciisa meesha uu ku taxan yahay. haddii macmiil hore ku jiray marka qulfana waxa soo baxaya magaca macmiilka. haddii macmiil fara badan ku jirteen waxa soo baxaya magaca macaamiisha fara badan oo iskor iyo hoostaala. haddii aan macmiil hore noo samaysnayna waxa soo baxaysa qalcado banaan oo aan waxba ku qornayn. hal mar aan click siino waxa soo baxay qalcad banaan oo haba yaraatee aan ku jirin wax magaca ama qoraal ah nooc doonaade. haddaba aynu ku noqono home anagoo sharaxaad kooban ka bixinayna ee customer list waxa meesha ay galaan macaamiisha deynta ka qaata ee markaasi alaabada inta ka sii deynsadaan hadhowna lacagta marka ay iibiyaan ama marka ay helaan dub u soo bixiya oo markaasi loo sameeyo account intaasi deynta ugu sii kaydsanaato si loo helo tixraac hufan oo markaasi ah macmiilkii ka qaatay deynta lambarkiisii magaciisii iyo haddii ay jirto cid ka wakiila. aynu guda galno dabeetana si aan usoo sameyno macmiilka koowaad. macmiilka koowaad waxaan u bixin doonaa Hanaan Store. Hanaan Store waa Hanaan Store. way Hanaan Store soo sameyno waxaan click siin doonaa halka ay ku qoran tahay customer list. waxaa dul yaala dhowr qof oo markaasi isa soo daba joogo oo ah sida ay soo kala horeeyeen macaamiisha ama sida u kala xarfaha alifbeetada u kala horeeyaan inay soo xigi doonaan. click markaasi noo ee dabeetana daaqadaasi soo furanto ayayna waxaan kasii dooran doonaa meesha ay ku qoran tahay add oo ah ku dar. maxaa lagu daraya macmiilkii ayaan ku soo darayna halkan waana macmiilkii ugu horeeyay ee lagu soo daro oo noqonaya Hanaan Store. click markaasina Hanaan Store si aan ugu soo darno click marka ka arsino daaqada ma soo bixi doonta. halka first name ku qoran tahay halka title ku qoran tahay halka company name ku qoran tahay inta waxba ku qormaysa khaanada dhexe ee ku qoran tahay list name ama last name ay ku qoran tahay last name baan ka wada last name ayaad ku qoraysaa magaca macmiilka. waxa la yiraahdaa Hanaan Store. way Hanaan Store marka saa yiraahdo halka waxaan ku qori doonaa telefoonka Hanaan Store waa 0634342055. way haduu line watana waa 71881. way halka waxaan ku qorayaa magaca qofka leh. waxa la yiraahdaa Mahdi Abdi Jama. haddii damin looga baahnaa waxaan waxa damintay ganacsade Harbi ayaa damintay oo Harbina tusaale lambarkiisu yahay 06345454545 lambarkaas oo kale ayaa damintay. way halka marka marasoo dabeetana waxaan oran doonaa in aan markaasi aan iraahdo save oo aan macmiilkaasi aan save gareeyo. si aan save gareeyo waxaan oranayaa bartaas ay ku qoran tahay save. way haddaynu eegno waxa halkan soo galay macmiil cusub oo la yiraahdo Hanaan Store. mobile numberkiisuna inta yahay waxa loo yaqaano balance-ga account balance-ga lagu leeyahayna u zero yahay.
tagno inaan hab kale ugu soo darno qof kale. haddaba maanta casharadu waxay ku macaan yihiin muhiimaduna tahay inay fahanto mar walba dulucda casharka dhiganayso. haddii cashar lagu dhigayo oo casharkaas noqdo ugu yaraan 7 8 10 20 30 mir waxa laga yaabaa in fahanka ku jira ama ujeedka ku jira uu ka yar yahay 20 konton ilaa iyo 1 daqiiqo faa'iidada ugu weyn, balse inta kale ay noqoto sharaxaad aan macna buuxa sameeyeen. wax walbana waxa ugu fiican markaad wax dhiganayso, wax qabanayso, wax sameynayso qaybta loo yaqaan itus oo taabsi shaygi inaad muhiimadiisa ogaatid. muhiimadan ogaanayna waxa weeyaan macaamiil sidee ugu soo dari karnaa QuickBook point of sale only ma jirto ujeedo kale oo markaas ka leenahay sharaxaadna bixinayo macaamilka caano cabaay macaamilka waxba la siiyay waxa ka sheekaymayno. waxaan ka sheekaynaa macaamiil sidee loogu soo daraa only way. haddaba sharaxaad wati ugu dambeysay muhiimaduna taasi ku jirta. mar labaad sidee macaamiil cusub ugu soo darnaa ganacsigeena software-ka waa adeegsanayna point of sale-ka suuqa mid noqdo macaamiisha deynta qaadata. klika ayaan si doona bartaay ku qoran tahay customer list. haddii bal ka waran customer list aan ku muuqato daaqadsan tahay macaamiil la doonayso inaad ku soo darsato. imka tusaale daaqadu waa sidan macaamiil cusub aad doonayso inaad ku soo darto. arrinka koobaad sameynaysa waxa weeye halka ay ku qoran tahay kombolka ay saaran yahay home ku qoran tahay aad kliksin dabeetana halkan baad iman doontaa isla halkan customer list kliksi. daaqadu marka saa fronto ugu horeynba waxaad tiraahdaa bartay ku qoran tahay add oo ah ku dar. maxaa lagu darayaa macaamilka cusba bartaas ayaa nile last name halka ku qoran tahay waa barta mar walba ku qoraysa magaca qofka macaamilka ku noqonaya ama meherada macaamilka ku noqonaysa. inka meherada magaceeda ma hayo laakiin qofkaan aqaana qofka waxa la yiraahdaa Xasan Jaamac wala farta capital wana ku aadan farwaawin Xasan Jaamac Harbi. Xasan Jaamac Harbi marka soo qoray Xasan Jaamac Harbi telefoonkiisa aqaana waa 0634342055 way. wuxuu ku yaalaa xaafada f gooye magaalada Burco. laal marka uu qoro Zayf ayaan leeyahay. Zayf marka yiraahdo hatta halkan waxa ka soo baxay Xasan Jaamac Harbi lambarkaas wata balansigiisu waa 0 halkaas ayaa sagna mareen. barta marka joogno si arrinkaas ugu soo gudubno waxaan sameyn doonaa waxa loo yaqaano wixii intaas inaga gudboon oo ah macaamilkii oo deyn qaadanaya. balse casharkeena maanta muhiimadu waxay ahayd inaan soo sameyno macaamilka macluumaadkiisa magaciisa iyo alka laga soo sameynayo. dhamaanteen waan salaamaya daawadayaal iyo sidoo kale ka faa'iideystayaan. wixii faahfaahin ah kala soo xiriir lambarka 434 2 5 5 waa lambarka aan anigu wato. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.